I am still learning Somali, but after 6 months, I'll be fluent. It is a great day for me. One of the most emotional and most important days since I assumed these responsibilities 1 year ago. It is important emotional because I am participating and witnessing the formation of tomorrow for Somalia. Young men and women, you have one of the greatest leaders before you. This minister and this ambassador. I'm not campaigning for him, but I am acknowledging his greatness. His greatness in ideas and commitment. He has done something which nobody has done in the field of education in the past 20 years. There have been scholarships, there have been students, there have been ministers, but he is the first one to extend scholarship in a fair, transparent, and equal manner. He is giving opportunity to every young man and every young woman, to every boy and to every girl, irrespective of region or clan or family connections. Like the United Nations, which stands for unity, territorial integrity, and sovereignty of one Somalia. Aynu nahay dad dhiban ayaynu nahay 20 sano ka badan ayaynu rafaad ku jiray maradu madaxa inoo saaray aynu waalayn aynu isqaban weynay aynu isilownay waxaan u malaynayaa ilaa iyo 2000kii intaaba dawlado ayaa la dhisayay anigu waa intaan hadda soo qaadan karo mar walba wuxuun baa la dhisayay laakiin hadda intaan anigu soo qaadan karo ilaa iyo cabdiqaasim baan soo qaadanaya waxa la inoo dhisayay dawlado waxaan maanta idinku bishaaraynayaa xukuumaddan ugu dambaysa ayaa awood u heshay ama garatay inay idin xusuusato inaad tihiin dad jira waa mahad aad u ballaaran xukuumaddaas xaggay ka timid dibadday ka timid gudaha may joogin dhalinyaro dibadda wax ku soo bartay oo nin waliba iyo gabadh waliba nolol wanaagsan ay haysatay ayaa intay iska soo dhigeen noloshii ayay soo dhaqaaqeen dalkoodii inay wax ugu qabtaan waxbarashadooda iyo dadkoodii taasuna waa mahad ballaaran ilaahay baa mahadaan magaceeda leeyahay hodan waa ingiriisiina kula hadli doontaa ayaa saddex eray idin oranaysa hodan aye Assalamu alaikum. Magacayga waa Hodan Ahmed Saeed Nalaya waxaan rabaa inaan maanta English ku hadlo inaan Mahiga tuso. And I want to tell you in English that I'm here from the United States of America. I'm a Somali woman, educated, university degree, and I'm here to come back to my country
So I'm a little emotional today because I see all these young people, and I know education is the only way we can help our country. So there's many people like me who live outside of Somalia, but who want to help. So I congratulate you guys, and I'm with you, and I will support you, and I will get more people to donate so that we can educate more people. Just know that tribalism, qabil, is not gonna help our country. We are here. There's mothers dying, there's children dying. It's time for us, young people like you, to get educated, to help your country, because with education, you won't think about qabil. You will think about helping your one brother, your one sister. So that's all I want to say. Thank you so much, Mr. Mahiga. And I trust that the power of our country is in your hands, and you will do the right thing for Somali people. Thank you so much. waxaa farxad ii ah معالي الوزير in ardayda qaarkood wax ku soo bartay Soomaaliya ay fursadan ay helaan waxaan ku rajaynahay inaad najixi doontaan inaad dalkiina ku soo noqon doontaan inaad rajada muuqata Soomaaliya aad ka soo qayb gali doontaan oo aad dalkiina aad ka dhigi doontaan dal lagu xisaabtamo dal rajo leh dal ka qayb qaata horumarka caalamka